bismillaahi raxmaani raxiim. waxaad ku soo dhawaataa TV-ga Wamo TV xaruntiisa oo ku leeyahay magaalada Nairobi. maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay aqoon guud, taasoo ah inaan idin ogeysiino waxyaalaha dunida ka dhacay ama waxyaalihii hore u soo dhacay sida diinta, sayniska iyo aqoonta guud. haddaan ku bilaabo, ma ogtahay in wadanka Indonesia uu ka kooban yahay in ka badan 13,000 oo jasiiradood, isla markaasna uu yahay wadanka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee dal qura ku nool. xornimadiisa wuxuu ka qaatay dalka Holland. ma ogtahay in gabadhii ugu horeysay ee muslim ahayd ee si dimuqraadiyad ah loogu doorto jagada ra'iisul wasaare ee wadan islaam ay ahayd Benazir Bhutto oo u dhalatay dalka Pakistan. gabadhani waxay wadankeeda ra'iisul wasaare ka noqotay 2 jeer oo kala ah 1988 ilaa 1990, markaas oo ay jirtay 35 jir. waxaana labada jeerba xukunka uga degtay nooc kacdoon shacab ah. ma ogtahay in wadanka adduunka ugu dhulka yari uu yahay wadanka loo yaqaano Vatican-ka, waxaanu leeyahay dhul baaxadiisa lagu qiyaasay 44 hektar. ma ogtahay in boqorkii dunida ugu da'da yaraa sanadii 1986 uu ahaa King Mswati, xilligaas oo da'diisa ahayd 18 sano oo qura. boqorkani wuxuu haystay wadanka Switzerland oo kamid ah 5 wadan ee ku yaala koonfurta Afrika. ma ogtahay in Shiinadu awood u leedahay inay aragto noocyo kamid ah falaaraha ay cadceedda soo dayso. iska taagtaan dheeftuye markaadna barmaqnaataba sidoo dayaxan